annagu waxaanu kaga duwanaan karnaa waxa weeye inaan si dhab ah runtii u raadino in Soomaalidu wada hadasho si dhabana u wada hadasho ayada oo mar walba lagu dadaalayo oo wada hadalka uu garab soconayo in la isu garaabo iyo in waxyaabaha la tabanayay arinta waan go'aydu iskama imaan sababaa jiray mashaakilaadkaas in la address gareeyo oo si dhab ah loo wada hadlo oo walaaltinimo halnimo taas waa mid labaad waxa loo baahan yahay wax alla wixii dawladda federaalka la jira adeeg ah dhaqaale ah wax la wada lahaa dhinacan soo jira waa in la wada yeeshaa oo dadku ay ka wada dhaxeeyaan oo dadka wixii isugu jiray ay isugu jiraan siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waxa jira waxyaabo kale oo fara badan oo la wadaago marka in waxaas la wadaagayo in si ahalnimo oo walaaltinimo ah loo wadaago oo dawladda federaalka ay ka shaqeyso in waxyaabaha u baahan fududeynta kaga xiran walaalaheena reer waqooyi in si degdeg mar walba loo fududeeyo taasna waa ka shaqeyn doonaa hadii la hadda marka waa 31 sano oo Somaliland gaar u taagneed dooda Somaliland mar walbaana ay ku celcelinaysay arinta wada hadallada ay dad reer waqooyi ama deegaanada Somaliland ka soo jeedahay inaysan qayb ka noqon dadka matalaya dhinaca Soomaaliya arinka wax miyaad ka bedeli doontaan anigu wax ka weyn baan arrimahaas fiirinayaa oo in kalsooni la abuuro arrimaha ayaa ka qayb galayay waa farsamo marka farsamadaan aad la isugu daalin baan anigu qabaa waxa muhiimka waxay tahay dadka walaalaha in kalsooni la dhiso kalsoonidaas iyadoo laga duulaya marka in wada tashi laga gaaro sida wax looga qayb galayo iyo cidda ka qayb galaysa waa farsamo dagaal bay ka imanaysaa mudane khilaafka waxaad soo hadal qaaday Soomaalida dhexdeeda iyo saameynta uu ku yeelan karayo howlaha iyo higsiga dawladda horeyna dawladii hore ugu yeeshay sunno dabiici ah oo taariikhda dhow laga bartayna waxa asal u ahayd khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo marar badan iyo madaxweynayaashii u dambeeyay oo dhan iyo ra'iisul wasaarayaashii u dambeeyay soo dhex arinka dabcan adigu madaxweynuhu dad hore isu yaqaanay baad heedeen hore u soo wada shaqeeyay walaac ma kugu haysaa walaac maayo annagu bashar baan nahay bini aadan baan nahay waa iskhilaafi karnaa aragtiyo kala duwan waxyaabaha qaarkood waa ka muuqan karaan laakiin waxaan rajaynayaa inaysan marna gaarin in arrintaas ay khilaaf weyn isu bedesho ama ay caqabad ku noqoto dowladnimada Soomaaliya haddii ay badacdo inay heerarkii dhici jiray ay gaarto sidee kula tahay sida ugu habboon oo loo xalin kari lahay ma filayo inay gaaraysaba aniga madaxweynuhu haddii aan aragti ku kala duwanaano muayana waxaan helaynaa oo hubaa inaan helayno farsamo aan ku xalisana annagu iyada oo aan meel waxba laga aadin ka waran marka xiriirka xukuumadda iyo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo aynu ognahay hadda dawladda u dambeysay hadaynu tusaale u soo qaadano in dawlad goboleedyada xiriirka kala dhaxeeya qaarkood aysan wanaagsaneyn annagu waxaan qaadanay oo wadanaa mabda la yiraahdo Soomaali heshiis marka laga hadlayo Soomaali waa heshiis waa siyaasiyiinta ay ugu horeeyaan madaxda dawladda xubnaha dawladda federaalka iyo madaxda dawladda federaalka waa ka shaqeynayna hadii Ilaahay yiraahdo inaan wax khilaaf dhicin sidee baa isku wadka loo gaarayaa waxa muhiimka ah waxay tahay waxa lagu gaaray runtii in la wada hadlo wixii waa la wada leeyahay cid walba waxa ay ayada khuseeya ayada iska leh wixii la wada leeyahayna wada tashi iyo midnimo ayaa lagu gaaraya taasa muhiim ah waxna waa la kala leeyahay waxna waa la isku leeyahay sidii suuq sheegayba marka cid waliba waxay leedahay ayada leh waana lagu ixtiraamayaa mudane ra'iisul wasaare gobolka laga soo doortay ee Jubbaland aad baarlamaanka ugu fadhiday khilaaf baa jiray muddo soo taagnaa xogogaalna aad u ahayd arrinkaas sidee u abaari doontaa adiga shakhsiyan oo si shakhsiyan ugu quseeya أنا الشخص اللي مخصيه أنا باي مسك الصومالي أنا رئيس وزراء الصومالي أنا هاي وحاي خصيص جبلان وحاي خصيص هيلشابيلا وحاي خصيص قلمدود وحاي خصيص محمد بها الصومالي وضم ذلك استوجب تاعي خصيه وحكست أو خلافة أو جراء كومدا أنا قاعدين أيه مدحوين حسن الشيخ محمود ومدحوينها كي هاي بيس كي أو حاوة صومالي هشيسة marka waa in heshiya waa in dadka degmada dhexdeeda ama tuulada jooga ay heshiyaan kuwa degmadu waa inay heshiyaan kuwa gobolku waa inay heshiyaan kuwa dawladda Soomaaliyeed guudna waa inay heshiyaan marka dawladdu waxa ay ka shaqeynaysaa waa heshiis iyo dadka Soomaaliyeed in la isku dumo dadka Soomaaliyeed in la isu calooshooda la isu furo burcad la isu mariyo ay Soomaaliyeed yaan ka shaqeyn doonaa hadii la
ahmiyad iyo hortabin intee leeg ayay idin leedahay marka arrinka Jubbaland waxay la mid tahay gobolada kale ee laga yaabo inuu wuxuu midmado ka jira dadkeena waxaan hortabinna dib u heshiisiinta iyo Soomaali heshiisii hortabin bay noo tahay saan ku sheegay cadow lama dirir karo nabadgelyo lama sugi karo abaaraha wax badan lagama qaban karo dastuur lama dhameyn karo doorasho xor ah oo qof iyo cod lama gaari karo dhaqaalaha laguma kobcin karo haddii aan heshiis jirin oo Soomaali heshiin marka heshiisku hortabin buu leeyahay talaabo kastoo la qaaday waxa ka horeeya dadka Soomaaliyeed inay heshiiyaan